السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال فيد وناكسن كسو دوادا برامجka bandhiga STN gaar ahaan qaybtiisii wana dhakhtar oo si toos ah uga daawataan habeen kasta oo jimcaha hadaha iyo kale muqbaahiyaha STN xarunta dhexe uu ku leeyahay magaalada Nairobi. Barnaamijka ayaa alaaba waxa nagala qayb qaata Dr. Cali Maco Aweys waxaana ku falanqeynaa arrimaha caafimaadka iyadoona daawadayaasha arrimo badan oo caafimaadka ku saabsan sharaxaada dheeraad ah laga siiyo halka qaybaha dhexe iyo waliba ilaa qaybaha dambe daawadayaasha ay la soo xiriiraan qadadka telefoonada si ay su'aalahooda u weydiiyaan dhakhtarka isaguna halka uu uga jawaabo. Dr. Cali Maco Aweys hadii aad u baahan tahay xaruntiisa ku taala magaalada Nairobi waad gaari kartaa waa International Health Medical Center ka soo horjeedka Moonlight wadada 12aad ee xaafadda Islii waana dabaqa koobaad iyadoona markaasi dhakhtarku ku shaqeeyo ama lagu daaweyn karo NHIF oo halkaasi diyaar kugu ah. Caawa waxyaabaha nudirada ku saari doona iyo waliba qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad ku daawan doontaan. ugu horeyn aan soo dhaweeyo doctorka. Dr. Fiid wanaagsan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Foosay aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa soo dhaweynta aad soo dhaweynayso. waxaan rabaa inaan toos ku salaamo adiga laftigaaga. marka xigta waxaan rabaa inaan salaamo STN TV Star TV shaqaalaheed iyo madaxdeedii meel kasta ay joogaanba inaan iraahdo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. fursadan wanaagsan aad nasiinaysaan aan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba ay wacyigelin ama talo dhakhtar aan ku siin karno. marka xigta waxaan rabaa inaan salaamo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba qaasatan reer Kenya ayaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ayaanu ku leenahay guud ahaan doctore mar kale daawaday hadii aad joogto Nairobi guud ahaan Kenya iyo waliba nawaaxigeeda dhakhtarka xaruntiisa ayaad ku booqan kartaa magaalada Nairobi ayuu dhawaanahan ku sugnaan doonaa hadii ay bahawada loo ogolaado. marka ay dhamaan xubnahaagu helaan caafimaad dheelitiran ayaad guud ahaan bahashaahan fikir hawo aduun iyo har lagu qabowsado taasi oo hor iyo gadaalba ka yimaada maskax ay xoojiyeen adimo kaaba oo aan in lahayn hadal badan iyo heelasho kaba ma noqdaan aaran ka ramad dhalay iyo haleelo duubi laga soo buuxiyey hase ahaatee haddii aad daawade xumad madaxa ah adimo garaacmaya laabtaadu ololka gaas ku keena dilooday iyo dhammaanba caafimaad xumi aad la jiibtay war farxad leh ayaan iminka ku wadaa oo waxaa lagu furay International Health Center. Dr. Cali Maco Aweys ayaana xarun caafimaad kaaga furay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. taasi waa bishaare heede adiguna bil khayr oro. xarunta caafimaadka International Health Center waxa ay ku taalaato olofka gaar ahaan wadada masaajidka aada waxaana uu si rasmi ah uga soo horjeedaa baqaaxidii hore ee Moonlight. ninkii dareynaya oo raba inuu ii yimaado wuu ii iman karaa cudur kasta uu ka cabanayo. sidaad ogtihiin aniga takhasuskayga waa general medicine 7 sano ku shaqeynayay dumarka caruurta lafaha wadnaha caloosha beerka kaliyaha wax allaale wixii adiga adanaynayso waad ii iman kartaa haddii aad rabto waxbaad iga gaaraysaa. wixii faahfaahinta si dheerna ka dheeho shaashada. mar kale isku soo noqod wanaagsan qaybihii hore ee barnaamijka ayaanu ku guda jirnaa iyadoona markaasi toddobaadkii la soo dhaafiyay toddobaadkan sharaxaada dheer dhakhtarku ka bixin doono alsarka iyo waliba qaababka uu kala baxo iyo siyaabaha uu dadka ugu dhaco. mar kale doctore fiid wanaagsan. bismillahir rahmanir rahim. foosay mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad baan ku mahadcelinayaa soo dhaweynta aad soo dhaweynayso. marka xigta waxaan rabaa caawa inaan programka aan u wadano ama topic-ga caawa aan wadano wiigii hore waati aan ka hadalnay nabraha caloosha ku yaala. caawa waxaan rabnaa inaan tusno nabraha caloosha ku yaala sidee baa loo garan karaa sidee lagu ogaan karaa. waxaad arkaysaa foosay ummad badan oo Soomaaliyeed intay ku yimaadeen ulcer baa leegu sheegay gastritis baa leegu sheegay gas baa leegu sheegay adiga waa waxbay iska sheegayaan dawada gaaskana haddii 2 sano 3 sano cunaya waxyaalahaas bay ku sheegayaan. marka runtii horta gas inaad qabto iyo ulcer inaad qabto iyo waxyaalahaas oo dhan waxa kaliya lagu garan karo waa tuubo la isgeliyo oo caloosha inta la geliyo la soo arko waa hal qodob. qodobka labaad oo lagu garan karo waxa weeye daawo inta lagu cabsiyo raajo haddii la saaro meeshaas oo dhan waa qodobka labaad oo lagu garan kara haddii wax dhib ah ay jiraan oo calooshaas ay dhib ka jiraan. laakiin waxa ugu fiican tuubada runtii
oo nabarka lagu ogaan karaa, oo haddii gaaska uu badan yahayna laga soo dhuuqi karaa oo laga soo bixin karaa. aniga hadda nin ayaamahan dhow aan arkay, cunto ma cuni karo, waxba ma cuni karo, tacbaan marka la ii keenay aan tubada geliyey waa yaabay. gudaha markaan galay gabal hilib baaba meesha ku xiran ba, cad hilib ayaa ku xiran. cadkaas hilib markaan soo saaray oo gaaskii oo dhan maaragta aan kasoo dhuuqay aan ka bixiyey, hadda kaala arag qafkii wuu cunayaa wuu cabayaa, alxamdulilah, ilaah baa gacanteeda daawo ugu daray. marka soomaalida badi way ka cabsataa oo waxay ku dhahaysaa aniga waan ka cabsanayaa, ma samayn karo, ma yeeli karo. hadda runtii waa wax laga cabsada wuu yahay. maxaa jira dheh, haddii qof aqoontiisa aan lahayn oo ku geliyo aw tubada u dhuuntaas kaaga rido, waa dhibaato. waxaa dhici karta neefta inay ku dhibto, aadan neebsan karin. waxaa dhici karta inaad ari la qalaayo ama geel la qalaayo kale inaad cawaado caacda kaa yeerto. waxaas aniga hadda inta aan gelinayo way ka badan tahay 30 sano iyo ka badan, weligay ma arkin qaf khayliya, ma arkin qaf cawaada, ma arkin. markii tubada ay dhammaato aan weydiiyana warhaye ka waran bal xaalkaaga, goormaa lay gelinaya tubada unbay weydiiyaan, maba ogaba. wixii aan dhameeyey qafka la socda unbaa arkaayo, wixii aan sameynayay iyo wixii aan sawirada aan sameynayay dhan kuwaasaa garanaya. marka foosey waxaa horta loo baahan yahay haddii caloosha, waan runtii hadda ka horna waa sheegnay, qofka bini aadamka meesha noloshiisa ka bilaabato meesha ay ku dhamaatana waaye markii adiga nafta ay kaa bixi rabtaba cunto ma cunaysid, cuntadii baa diideysaa, ma cuni karaysid, waqtigaabaa dhammaaday. marka saasaa lagu garan karaa. marka noloshada markay bilaabato, cunuga markuu dhashana hooyadiis naaska markii loo dhigo oo jaqid bilaabo ayuu aamusayaa oo murankiisa iyo qayladiisa iyo laga amaan helaya. marka meeshaasay ka bilaabataa, meeshaasayna ku dhammaataa. marka caloosha waa muhiim. haddii weliba caloosha laga hayo, dhibka ku imaanayo oo kale waxa weeyaan, waxa ku imaanayo maskixiyan buufis inuu ku galo, inaadan seexan karin, markasta gaas inuu kugu soo dhaqaaqo oo marbaaba laabjeexa ay ahaya, aan meeshaan waxbaa barar baa igu jira, waan dibirsanahay, cunto ma cuni karo, oo anigayo dhan mataqaana. marka alsarka uu jiro, gaajana uma adkeysan kartid, dharigna cuntana uma adkeysan kartid. cuntada haddii aa cunto muuku meesha ku dhaco oo nabarkii uu taabto, xanuun baad ka garan aada arkeysa, xataa biyo haddii aad cabto. marka gaajo ay ku haysanan ma adkeysan kartid oo meeshii baa xanuunaysa oo nabarkii baa xanuunaya. waa hal qodob. qodob kale waxaa jira la yihahdo gastritis. gastritis baa leegu sheegay. gastritiska muxuu yahay? calooshii baa waxay u eg tahay sidii yaanyadii oo kale gaduud ah. marka inflammation baa caloosha qaaday, gastritis baa la yihahdaa. taasi lafteeda waxaa keliya lagugu sheegi karaa oo lagu garan karaa waa tubada markii lagu geliyo, si kale lagugu sheegi karaa ma jirto. marka waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed, haddii caloosha aad problemka qabto, waa inaad horta heshaa dhakhtar fiican oo cudurkaas wax ka yaqaan. marka xigta cudur nin fiican oo tubadaas samayn kara adoon waxba lagu gaarsin. maxaa dhacay dhe, tubada haddii aqoonteeda aadan lahayn, dhibaataa kuwa lagu gaarsiin karaa oo aan laga soo dheeldheel loogu soo kabsanayn. marka waxaan leeyahay, haddii dhibaatadaas ay qabaan, dhakhtar fiican ka raadso oo samayn kara tubada. waa hagaag, aad baad u mahadsan tahay doctore. hadda waxaan rabaa foosey inaan tuso balka hore waxaa la yihahda bal caloosha waxa weeye saasay u eg tahay tubadii markii la geliyo. caloosha hoos markii loo dego, kaas waxaa la yihahdaa duodenum baa la yihahdaa, oo hoostaas loo dega. marka calooshii iyo mataqaanaa cuntada meesha soo maraysa ay waxaa la yihahdaa esophagus baa la yihahdaa, kana maagan waxaan waa af German. marka waxaad 15 minutes ayaa waxa dhan lagu samayn karaa oo lagu arki karaa. meeshaas markii la gelayo waa dhuunta hore oo isxiraysa. markii meeshaas la galo saasaa ay u gelaysaa tuubada. markay u gasho meeshaas ayay maraysaa, waa meeshii ay isxiraysay. calooshiibaa hadda lagu jiraa. calooshi dhexdeed markii la galo, hore loo sii socdo, waxaa la tegayaa 12th epigandarium wax la yihahdo, ama duodenum baa la yihahdaa. duodenumkaas markii aad tagto, meeshaas hoose aad tagto, dhacaan baad soo qaadaysaa, waxbaad ka soo qaadaysaa oo lagu baarayo H pylori bacteria, campylobacteria, ama waxaa mataqaanaa cudur xun, ilaahay intii muslim allah ka koriyay, Soomaalida khaasatan
kansarka iyo wixii lamid ah saasaa lagu garan karaa. marka waa wax aan fududeen, laakiin haddana wax fudud weeyaan qofka aqoontiisa leh. qofkan aqoontiisa lehna wax dhib badan weeyaan. waagaag doctor, aad baan kaaga mahad celinayaa sharaxaadaada. marka ugu horeyn maxaa keena dadku maxay ka qaadaan, xagee buu ka yimaadaa alsarka? foosey su-aal aada iyo aada muhiim u ah oo runtii annaga Soomaaliya haddaan u nahay muhiim noo ah, ummadda dhan oo kalen mataqaana cadaanka laftigooda oo muhiim u ah weeyaan. marka ugu horeysa horta stress wax la yidhaahdo ayuu ka bilowdaa, waxa gaaska la yidhaahdo. stresska macnaheed dad badan oo Soomaali ma yaqaanaan. marka af Soomaali markii lagu fasiro stresska murug weeyaan. murug markay ku gasho aada murugooto, murugta goormay ku galaysaa markay caruur aada qabto oo subaxii cunto ay kaa rabto, oo inta dharkii loo geliyo oo iskuulkii loo diro ama dugsi loo diro. marka subaxii hore aroortii hore inaad kacdo canjeero dubto oo wixii adiga la samayn jiray oo aniga aan aqaano ilmanimadii, ama muufa ama wixii la siinaya ama rootiba ahaado. subaxii hore waxaa loo baahanya caruurtii in loo labiso, loo qubeeyo, la nadiifiyo oo wax ay cunaan markii la qaado oo iskuulkii la geeyo. marka stress baa kugu bilaabanaya. gabar markaa tahay waqtigaa rabtid iska soo toosaysaa, waqtigaa rabtidna waa seexanaysaa, cid mataqaana ku daba taagan male. laakiin markii caruurta aad dhasho, ninka raggaa kuu soo haray, gabadha horta meeshaasay stresska ugu badan uu ka bilowdaa. qararac iyo qurufti iyo badan markay bilaabato oo lagaa bato oo mataqaana 2 iyo 3 iyo 4 markay noqdaan, hooyo kanaasaa yeele, hooyo kana, maalinkaas oo dhan haddii cawaad iyo dacwo iyo dagaal baad ku jiraysaa. marka taas stress meeran weeyaan. waa hal qodob. waa dadka Africa jooga. raggaa kuu soo haray subaxii markuu kaco horta wuxuu raadinayaa cuntadii berito la cuni lahaa. wixii la cuni lahaa ayaa laga rabaa. waa inuu subaxii hore kacaa, uu labistaa, oo wax cunaa, oo shaqo tagaa, oo shaqadaasi marka lacag uu keenaa. lacagtaasoo loo baahan yahay ilaa caruurta garan mayso, caana male, hunguri male, waxba ma yaallo, waxba ma garanayaan. waa cuntaa la rabaa oo adiga ama kar ama ha karin. taasoo laftigeed waa stress kale oo shaqadaas la aadayo oo la soo shaqaynayo. haddii xoogaa yar aad mataqaana 10 daqiiqo soo daado, waxaad ku siganaysaa shaqadii in lagaa sii daayo oo lagu yidhaahdo warniyow ade ninkii la rabay ama loo baahnaa ma ihid, waan ka xunnahay, raalli ahow, gurigaaga aad. taasoo lafteeda dhibay keenaysaa. waa dadka Soomaaliya jooga. dadka Yurub jooga kuu soo haray. foosay dadka Yurub jooga waxa ay u badan yihiin stresska badan oo keenaya, ayagoo lacag la siiyo oo guriga mataqaana degaan la siiyo, ayaa haddana waraaqada lagu wareerinaya. warqadaas haddii aan la waayo oo qofkii uu imaan waayey, lacagtii baa laga jarayaa. lacagta haddii lagaa jarana allah ku naxariisto. ilaa laga soo celiyey lacagtaas waqti badan bay kugu qaadanaysaa. aniga weligey lacagna ma qaadan, weligeyna waxba kama, laakiin waan arkay kuwa badan. weliba marka ingiriiska aan deganaa ayaan aad iyo aad u arkay dad badan oo ku dhibaataysan. marka stresskaas markuu bilowdo oo lagu yidhaha xafiiskaas imow oo bas raac, haddana baska ka deg, haddana mid kale raac, haddana mid kale ka deg, meeshii markaad tagto maanta o dhan aad fadhido oo haddana lagu yidhahda xaggee baad jirtay, xaggee baad aadi, maxaa warqadda u arki weyday, maxaa warqaddii maba joogiba dulka. marka adiga dhibaato badan baaba lagu gaarsiinaya. ayagana Soomaalida weliba saas hal qodob weeyaan oo aad iyo aad u dhib badan. qodobka labaad waxa weeyaan Soomaalidii baa waxaa dhibaato ka haysa, wada noolaashadii baa qaribmaysa. tii annaga aan ka saynay oo qofka dumarkana uu dumar ahaa, ninka raggana rag uu ahaa, wixii baa isku khasmaya markii laga baxo ma aragtii dhaqankayagii iyo hiddadii aan lahayn iyo mataqaanaa wixii aan lahayn markii laga baxo oo ku kale inta la galo oo laysku dayo kaas in la qaato. marka dhibaatadaasna mataqaanaa Soomaali badan baa ku rafaadsan. maaha keliya Yurub, waa America ama Canada ama adduunka dhan bay saa ugu rafaadsan yihiin meeshay joogaanba. dhinacan westiga la yidhaahdo oo dhan saasay ugu rafaadsan yihiin. labadiioo isqaba islama degana, labadiioo aan isla deganaa dagaal baa ka dhacaya, askar baa loo wacaya, ninka ragga banaanka loo bixinaya, stress baa ku bilaabanaya, ilmihii ma celin karto hooyadii. marka laftigeeda gaas buu keenayaa. adiga gaaska meelo badan stress badan ayuu ka yimaadaa.
waa hagaag doctor aad baad u mahadsantahay. marka alsarka ahaan laga fiiriyo ma wax marka qofka markuu nabarkaasi uu hayo markasta kusoo kaca ma markuu cunto cuno kaliya kusoo kaca ma wax iska hayo xanuun caadi ah mise waa un wax marmar uun kusoo kaca? foosay su-aashan lafteeda waa su-aal aad iyo aad u fiican. horta alsarka haddii uu yahay habeenna jiifan maysid, maalinkeena ma socon kartid oo ma noolaan kartid ilaa waxbaa ku dhibaya, nabar baa kugu yaala. waxaan kuu sheegayaa keliya nabar yar hadduu halkaas kaaga soo baxo gacanta, xanuunkiisa mar kastaba saasaad leedahay oo gacantiisa hataad u celinaysaa, ma celin kartid xanuun miran. gudaha hadduu kaaga jiro ka waran, gudahaaga hadduu ku jiro wax haddii aad cunto wax subag leh haddii aad taawato kama iskaba dhaafba, waaba nolol iyo geri bay kuu gaaraysaa. xanuun aan dhammaanayn, adiga ma ka shaqaysan kartid, ma ka dhaqami kartid, ma ka socon kartid, adiga dhibaato oo joogto ah weeyaan. alsarka waxaan leeyahay waa wax aad iyo aad u xun, wax wanaagsan ma aha. waa hagaag doctor aad baad u mahadsan tahay. qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaanu isla soo gaarnay, iyadoo aan jecelahay in dhowaan daawadayaasha aanu qadadka telefoonada u furi doono si ay su-aalahooda dhakhtarka usoo weydiiyaan su-aal weliba, balse waxaan ka codsanayaa in daawadayaasha ay tv-ga iska gaabiyaan, telefoonkana ay nagala socdaan si su-aashooda aanu si wanaagsan ugu maqalno. doctor cali macow aweys waxa uu haatan si toos ugu sugan yahay magaalada tan Nairobi, xaruntiisa International Health Medical Center ayuu si toos ah uga howlgalaa, iyadoo markaasi xarunta haddii aad kusoo booqataba aad heli karto. haddii aadan awoodin lambarada iyo ciwaanada shaashada ku qoran ayaad kala soo xiriiri kartaan. ciwaanka iminkaba shaashada ku qoran waa ciwaankiisa saxda ah oo markaasi fariintaada aad kusoo dirsan karto. mar kale waxaanu idin leenahay fiid wanaagsan. qadadka telefoonada ayaa si toos u furan, iyadoo sidoo kale dhakhtarka xaruntiisa lagugu daaweynayo NHIF ta ama bakaarkaaga caafimaadka. mar kale waxaanu idin leenahay fiid wanaagsan. daawadaha ugu horeeya ee qadka telefoonka ku jira haddii aan soo qabto. Hello STN. Hello, assalaamu calaykum. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. walaal soo dhawow magacaaga iyo meesha aad joogto. ولا وزير بك صلى يا وقاسم أسمان حافظ. haye qaasim soo dhawow. محاضرة دكتورك عن سؤال لو يجيني أسوأ معتن. haye مو قرش يسنتها إنه وزير استار كفورة أم لي ما معي تاسو صار أم سوين وزير دكتور وين مرك. haye marka asalkan diyaar waa mid labaad gaaska bike muxuu ahay loo isticmaalay loo soo dhooqayo ma waxa la iskeeni karaa oo haduu qofka effect u keeni karaa mise waa wax saalan oo isticmaalay. waa hagaag. su-aal kale miyaa ku dhiman? intaas su'aashiida aad baad u mahadsan tahay qaasim. doctor qaasim aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa, waana ku salaamayaa adiga. marka xigta waxaan rabaa inaan salaamo dalkaygii magaaladeydii waa Wajeer, ummadda degan oo dhan waxaan leeyahay khaasatan Buule Cali Macow aanan dhaafi karin inaan idhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Wajeer waa beledkayga. marka xigta qaasimow taladaas waan wadaa, hadda weli waxaan ku tala jirnaa maaragti Nairobi inaan mataqaanaa sameyno, marka waan imaanaynaa Wajeerna insha allahu hadduu alla idmo. Wajeer ka maqnaan mayno, mataqaana xarun baan ka sameynayaa oo waan ku tala jiraa inaan mataqaana meeshaas laftigeeda anigana marmar aan boodo aan tago meeshaas oo ayaama aan soo joogo. taasu taladayda waaye, ilaahay haynoo fududeeyo. waa taasu waa tii aad su-aashii aad ii weydiisay. marka xigta tuubada haddii nin aqoontiisa leh uu kuu sameeyo sidaan ku u sheegayba mar hore, wax dhib ay keenaysa ma laha, waadna fududaanaysaa, fudaad badan baad helaysaa. haddii gaaska wiiga danbaan tusi doonaa gaaska suu u badan yahay, isuu u badan karo hadduu alla idmo. marka gaaskaas haddii la dhuuqo eber laga dhigo ammaan baad helaysaa. marka qaasina waxaad ogaanaysaa gaaska in cadadan jirka wuu u baahan yahay, in cadadan markuu bato waa dhibaato u keenaya, markuu la-aan noqdana dhibaato u keenaya. goormuu badan karaa marka stresskaas badan iyo balaayo adig wuu badan karaa. marka wuxuu sameynayaa H pylori bacteria, campylobacteria wax la yidhahdo oo nabraha sameynayo. marka haddii eberna wuxuu noqon karaa haddii daawadan gaaska loo qaato ma aragti aad mar kasta qaadato oo mar kasta qaadato aadan dhakhtar kuu dhigin iska wado,
calooshii way qalalaysaa, qalalay noqonaysaa oo gaaskii oo dhan aa dhamaanaya. taasi laftigeeda dhibaatay keenaysaa. cunto damba ma cuni karaysidba, cuntada haddaa cunto way ku dhibaysaa, haddii gaajo aad qabtana way ku dhibaysaa. laftigeeda dhib kale ayay ku keenaysaa. sida loo soo celiya gaaskana ma fududa, waa la soo celin karaa, tartiib baa la soo celin karaa, laakiin ma fududa. marka waxaad ogaanaysaa haddii tubada lagu geliyo oo gaaskaas lasoo dhuuqo oo nin aqoontiis la sameeyo, wax dhib aad arkayso alla abuurtay ma jiro, waxna kugu reebi mayso oo dhibaato ah. waa hagaag doctor, aad baad u mahadsan tahay. daawadaha kale ee xiga iyo qadka telefoonka ee su-aashiisa. hallo STN. hallo TV-ga iska gaabi adigoo raaliya, telefoonka igala soco. calaykum asalaam, soo dhawow, magacaaga iyo meeshaad joogto. ha haye caloosha dhinaca qaynaysa dhakhtarka inay ii weydiiso, caloosha ay qaynaysaa. haye waxaan rabaa inay ii weydiiso bal dhakhtarka calooshiisa iga hayo. magacaaga ii sheeg. magacayga raxmaa la dhahaa baayo. raxma, aad baad u mahadsan tahay. Kazumo. raxma, aad iyo aad baan kuu salaamayaa, aad iyo aadna waan kugu mahad celinayaa su-aashaan aadna weydiinayso anagoo wada jir ah. reer Kisumo waxaan leeyahay Soomaalida degan meel kasta ay ka joogaanba, salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. haddii caloosha ay ku qaylinayso oo qayla jirto, waxaa jira laba nooca jirta oo qaylada keenta. haddii aad gaajo ku haysano waa qaylinaysaa caloosha oo waxbay cuntay rabtaa, yaynay cunin baa la yidhaahdaa. caloosha buuqaaqiiqu qaylada gaajo hadday ku hayso. marka xigta ay qaylinayso waa marka H pylori bacteria ama campylobacteria oo caloosha ku jiro, gaas buu sameynayaa. gaaskaas markuu sameeyo ayaa quuqdaas ay bilaabaysaa. labadaas nooc ayuu ka noqon karaa keliya. marka wayna wax fudud waaye, mataqaanaa raxma, waa lagu baarayaa, saxarada iyo dhiigga la fiirinayaa, ultrasound scan abdomenna waa la saarayaa. markaas ka bacdi waa la ogyahay dhibkaaga, dawadiisa lagu siinayaa, meeshay ku dhamaanaysaa oo quuqdaas iyo qararacdaas iyo waa ka haraysaa hadduu alla idmo. waa hagaag doctor, aad baad u mahadsan tahay. qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaanu daawadayaal ku guda jirnaa. haddii aad danaynayso in doctor cali macow aweys aad si toosa ula kulanto xaruntiisa magaalada tan Nairobi International Health Medical Center kasoo horjeedka Moonlight dabaqa koobaad ayaad ku booqan kartaa, iyadoona NHIF ta lagugu daaweynayo. mar kale fiid wanaagsan ayaanu idin leenahay. marka ay dhammaan xubnahaagu helaan caafimaad dheelitiran ayaad guud ahaanba heshaa han fikir, hawo adduun iyo har lagu qabowsado. taasi oo hor iyo gadaalba ka yimaada maskax ay xoojiyeen, addimo kaaba oo aan in lahayn. hadal badan iyo heelasho kaba ma noqdaan aaran ka ramad dhalay iyo haleelo duubi laga soo buuxiyey. hase ahaatee, haddii aad daawade xumad madaxa ah, addimo garaacmaya, laabtaadu ololka, gaas ku keena dilooday iyo dhammaanba caafimaad xumi aad la jiibtay, war farxadle ayaan iminka ku wadaa oo waxaa lagu furay International Health Center. Dr. Cali Macow Aweys ayaana xarun caafimaad kaaga furay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. taasi waa bishaare. heedhe adiguna bilkhayr oro. xarunta caafimaadka International Health Center waxa ay ku taalaato olafka, gaar ahaanna waddada masaajidka aadda, waxaana uu si rasmi ah uga soo horjeedaa baqaaxidii hore ee Moonlight. ninkii danaynaya oo raba inuu ii yimaado wuu ii imaan karaa, cudur kasta uu ka cabanayo. sidaad ogtihiin aniga takhasuskayga waa general medicine 30 sanaan ku shaqaynayay. dumarka, caruurta, lafaha, wadnaha, caloosha, beerka, keliyaha, wax allaale wixii adiga aad danaynayso waad ii imaan kartaa. haddii aad rabto waxbaad iga gaaraysaa. wixii faahfaahin intaasi dheerna ka dheeho shaashadda. waa hagaag daawadayaal, mar kale isku soo noqod wanaagsan. qaybihii qadadka telefoonada iyo daawadayaasha soo buux dhaafinayay weliba su-aalahooda ayaan markana dib ugu laabanayaa daawadaha qadka ku jira. hallo STN. hallo, asalaamu calaykum. calaykum salaam, walaal soo dhawow, magacaaga iyo meeshaad joogto. magacayga waxaa la yidhaahdaa Sumayo Ibraahim, waxaan ka soo wacay magaalada Gaarisa. Sumayo, soo dhawow, su-aashaada u gudagal. waxaan rabaa dhakhtarka inaan weydiiyo, waxaan ahay dhibano xanuunsan, adilaba sano waan xanuunsanahay. haye waxaan ahay qofka markuu cayilka ku dhacdo zayd ayaan oola xanuunsadaa. haye marka waxaan la lii guday gudmada fircoonka ayaa lii guday. haye marka
si alaaf caadi ugu dhaqaajisa haye isbitaalka daawo fiican ka meel daawo fiican ay siiyaan haye هذا الدكتور كان ويدينها يعني دaawo ay noqon kartaa daawo maangelaya waa hagaag aad baad u mahadsan tahay Sumaya su-aashaada dhakhtarka ayaan u gudbinayaa adiga amur Doctor waxay leedahay dhiiga caadada ayaan aad ugu xanuunsadaa markayga horena gudniinka fircooniga ayaa la ii guday dawooyin waan qaato dhaqaatiir kale waan tagay balse waxba iskagama dareemo sidaas uu ii xanuujiyaa markaste maxaan sameeyaa waxaan jeclaan lahayn ogaano inuu xinjiro iyo waxaas ka baxaan magaceed Sumaya aad baan kuu salaamayaa aadna waa kuu mahadcelinayaa su-aashaan aadna weydiinayso annagoo wada jir ah marka waxaan rabaa inaan salaamo reer Gaarisa meel kasta ay joogaanba ummadda Soomaaliyeed inaan ilaahdo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Sumaya haddii xanuunkaas oo aad sheegayso oo aad iyo aad u dhib badan oo xanuun ah oo aad cabsanayso 2 maalmood intayna ku imaan caadada ama dhiigga intuu ku imaan aad saas u cabaadayso oo ay ku bilaabanayso waxba ka qaldan adiga waxa loo baahan yahay marka ugu horeyso hormoonada in laga fiiriyo hormone disbalance hadduu jiro saas ayay sameynaysaa marka xigta waxaa jira hadduu infectionka intuu kaa bato oo mataqaana xinjiro iyo balaayi iyo uu kugu sameeyo oo mataqaana makaankaaga markii aad qaf dhalayo kale aad naqanayso oo xinjiro kaa baxaya laftigeeda waa dhibaato kale marka waxaas oo dhan waa la daaweyn karaa ilaah baa dawo leh waa la daaweyn karaa laakiin waa inaad heshaa nin waxaan aqoontiisa leh waa lagu daaweyn karaa xanuunkana ma loo baahna inaad mataqaan xanuunku socoto oo bil kasta aad cabsanayso intuu imaashadiisa in waxaa la rabaa caafimaad laga helo maaha in dhibaato loo arko marka waa wax la daaweyn karo waxaan ku leeyahay waa inaad dhakhtar fiican aad heshaa oo hormoonkaas iyo gudaha transvaginal ultrasound scan wax la yidhahda intuu kuu suubiyo oo aad ku caafimaadi karto hadduu alla idmo ilaah baa caafimaad haya dawadii lagu siiyana aad ku bogsanayso hadduu alla idmo waa hagaag aad ayaad u mahadsan tahay Doctor waan filayaa inay su-aasheeda jawaabteeda heshay isla markaana ay ka faa'iidi doonto daawadaha kale hello STN Assalaamu calaykum calaykum salaam soo dhawow walaal magacaaga iyo meeshaad joogto maxamed joogo magaalada Wajeer maxamed haye su-aashaada u guda gal doctorka wuxuu weydiinayaa gaaska maxaa sababa doctorka gaaska ugu horeyn waxa sababa haye intaas weydiin lahaa waa hagaag aad baad u mahadsan tahay Doctor maxamed aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashaan aad weydiinayso waxaan rabaa reer Wajeer mar kale inaan iraahdo dadkaas oo aniga laftigeeda aan ka dhashay meel kasta ay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu khaasatan reer Buul Cali Macuun mar kale aan sheego marka xigta waxaan ku leeyahay maxamedow gaaska adiga waa dee waqti dan baad soo furtay waa ka sheekeynay stresska hadduu badan yahay ayaa keenaya ama murugo badan haddii aad qabto ayaa gaaska ugu badan oo ka yimaadaa marka murugada badato ayaa calooshaas mar walba ku dhidhimaysa naxdin baa ku imaanaysa calooshaas markasto dhibaata ka haysa marka waxa waaye wixii makaraa makari bada stresskaas aan sheegnay hadda ragga waxaa u badan ma aragtay markii laga rabo cunta laga rabo caruurta cunta rabto oo maalinkaas inta halkaas ama shaqada laftigeed meesha uu ka shaqeynayo stress in meer inuu yahay oo markasta uu dagaal ku jiro inuu mataqaana isa soo saaro oo la riixayo markasta hoos loo riixayo waa dhibaatayaal badanaa jirta oo stresskaas kamid ah ayaa keena gaaska asalkiis waxaa kaloo gaaska keena cuntooyinka la yihahdo take awayga cuntooyinka meelahaas lagu karkariyo waxa weye habeenkii markii la gadi waayo waa la dhigayaa talaagaa la gelinayaa ama fregerkaa la gelinayaa subaxii haddana waa lasoo bixina waa la kuleynayaa waa la gadayaa haddana cuntooyinkaas laftigooda gaasku keenaa weliba wuxuu keenaa H pylori bacteria iyo campylobacteria wax la yiraahdo ayaa aad iyo aad ugu keena waa hagaag waan filayaa in daawadahaasi su-aashii uuna soo weydiiyey isagana uu jawaab u helay daawadaha kale ee xiga hello STN hello assalaamu calaykum calaykum salaam walaal soo dhawow magacaaga iyo meesha aad joogto Somali boy aad baan kuu soo dhaweynayaa su-aal haddii aad qabto soo daa
وفوتي أبي ودكتورك معواني سلام عليكم. salaam allah. دكتورك وحالي خير الله فيه ونوفى يا مدرتي. haye مرة أمد إلا مديكال وحاول جاي دكتورك أنا مقاس مقل وافي الحمد لله رب العالمين لك وحي دكتورك اللي يقول بيان كليمانجارو ومقتو كبار مجران قاس عليه على يقول haye marka dadku waxa weydiinaya biyaasan aad cawlaka xafiisya aan joogno marka bal inuu isoo biyaasi bal biyaa oo biyaa lagu shubay dibadda ay shaqeeyeen kale waa hagaag Soomaali boy aad baad u mahadsan tahay. way wala shaqada Doctor waxa uu leeyahay inta badan biyaha warshadaha ay sameeyaan oo caagadaha lagu shubo dadku waxay yiraahdaan cudurro laga qaada gaasku uu koow ka yahay anaguna aad baan u isticmaalaa balse hadda gaas ma qabo dadku waxay ugu wacyigelinayaan inaan iska baaro ma laga qaadaa biyaha ay warshaduhu ay sameeyaan cudurro. Soomaali boy Somali boy magac fiican weeyaan marka hore aan ku salaamayaa marka xigta aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashan oo muhiim ah oo aadna weydiinayso marka labaad hadda markaa dib ugu soo noqdo waxaan rabaa horta hore reer Gaarisa mar labaad meel kasta ay joogaan ba inaan salaamoon iraahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka xigta adiga aan usoo noqdo su-aashaada horta biyahaas lagama qaado cudurkaas laakiin biyahaas laftooda waxaa loo baahan yahay in laiska ilaaliyo dhulkan Kenya waxaan arkayaa biyihii dhalada ku jira oo qoraxda maalinkaas oo dhan oo iska yaalo asoo qoraxdaas barkee maxaa dhacay de bahalkan ma aragtay plastiga ah waxbuu daadinaya kiimiko daadinaya kiimikada aan fiicneen kiimik fiican ma aha haddii qoraxda la dhigo oo 30 garaad iyadoo qoraxda ay tahay ama 25 centigrade as uu yahay oo meeshaas ay mataqaanaa qoraxdii ay ku dhacdo oo habeenkii intaad soo qaadatid iyadoo qabooban aad cabto dhibaatay leedahay laakiin caadi wax dhibaato uu keeni karaa male haddii meel qaboob aad kasoo gadato ama dhul mataqaan shopping centeryada way iska qaboob yihiin markastaba biyaha waa qaboob yahay haddii kuwaas aad cabto wax dhib oo keeni kara ma jiro mana u baahnid inaad iska baarto haddaadan qabin allah kaa koriyo allah kaa celiyo iska dhaaf habaarin. waa hagaag aad baad u mahadsan tahay Doctore qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan ku sii siqaynaa dhowr daawadayaal ayaan jecelahay inaan fursadaha sii siiyo iyaguna si ay barnaamijka nagala qayb qaataan barnaamijku waa bandhiga STN gaar ahaan qaybtiisii waana dhakhtar oo habeen kasta oo Jimcaha si toos uga daawataan muqbaahiyaha STN xarunta dhexe uu ku leeyahay magaalada Nairobi toddobaadkani halsarka iyo weliba xanuunada caloosha ku dhacay toddobaadadii la soo dhaafay dhakhtarku si gaar ah uga hadlayay iyadoo sharaxaad dheeraad ahna uu ka bixiyay iyo weliba waxyaabaha keena daawadayaasha qadadka telefoonada ayaan dib ugu laabanayaa iyo su'aalahooda waxaase naga codsiya daawade markaad barnaamijka soo wacayso in aad TV-ga amaba shaashada naga daawanayso aad iska gaabiso si aanu si wanaagsan isugu maqalno su'aashaada loo fahmo jawaabta rasmiga ahna aad u hesho aad baad u mahadsantahay daawadaha qadka ku jira halo STN. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawow walaal magacaaga iyo meeshaad joogto. waa Faadimo Gaarisa ka soo wacay. Faadimo haye su'aashaada u guda gal. waxaan dhakhtarka weydiiyay rabay cunug yariis oo 5 sano ayaa lagu dhahay H pylori ku qabaa. haye bilka hore daawooyin mid isla isbuuc la qaadanayo mid bil soconaysa la diiwo dhameystay. haye kadib cunuga hadana inuu xal ka qandana weeyaysa kaar calooshuna ka sheeganaya dhakhtarna ma geynin marka dhakhtarku waxaan weydiin rabay dib uma sii baaran bil kadib laakiin wuu soo noqon karaa cudurka H pylori mise ama maxaa keeni kara cuntooyinka qaar oo cunuga la siin karin oo inay caloosha marba haddii xanuunaysa. waa hagaag Faadimo aad baad u mahadsan tahay. Faadimo aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashan aadna weydiinayso anagoo wada jir ah marka xigta waxaan rabaa reer Gaarisa oo adiga ugu horeeya meel kasta ay joogaan Soomaalida mar saddexaad inaan iraahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. horta haddii aan kuu sheego cunug 5 sano jira waa aad iyo aad H pylori iyo inta daawo aad sheegayso subxaanallah cunuga daawaba kaa dilaysaaba intaasoo dawo caruurta lama siiyo. H pylorigana mataqaanaa saxarada ayaa laga fiiriyaa cunugaaga dhibka haysta waxa waaye E. coli wax la yiraahdo dhibaya caruurta oo u badan H. pylori ma gaarin inuu ku dhaco inkastoo mataqaanaa 5 jir aduunya cuntooyinka qaarkood uu cunayo
laakiin haddana daawadaasaa u badan ma la ogola in la siiyo ilmaha in laga ilaaliyo daawo badan aa la rabaa. hadda dawaad aada siisay wuu cunay wax walba wuu daldalay, laakiin haddana sidaas ay tahay xanuunkii wuu qabaa, hadda weliba qandha hadda kusoo kordhay, maxaa dhacay dawo badan baad ka dharjisay. waxaad yeelaysaa cunugaaga waa inaad dhakhtar fiican aada heshaa oo hal daawo ama 2 daawo ku siiyo oo cunugaaga uu kuga caafimaado. laakiin waxaan dawada lagu daldalaya ma aragti oo intaasoo xabadood bil weligay ma maqlinba. inta hadda aan 38 sano 39 sano dhakhtar ahay weli ima soo marin ilmo bil daawo la siinayo. horta taas waa qodobka ma aragti hadda aad ka hadashay. marka xigta waxaa jira oo aan Africa lagu aqoonin weliba dadka Soomaalida, qowmiyadda Soomaalida la yiraahdo ma jiro, aad buu ugu yar yahay, laakiin waa cudur Yurubeed weeyaan oo la leeyahay mataqaanaa caanaha ma celin karo, ukunta ma cuni karo, digirta ma cuni karo, waxyaala qaarkood oo allergy lagu qaado ayaa jira. marka uma leen maayo cudurkaas laftigiisa allergigaas iyo waxaas inuu qabo, laakiin waa inaad dhakhtar fiican aad heshaa oo dawo yar oo lagu caafimaado. ilaah baa caafimaad bixiya, ilaah baa dawo iskale, ilaahay cunugaaga dawo ha usoo dejiyo. waa inaad heshaa dhakhtar fiican hadduu alla idmo. waa hagaag, aad baad u mahadsan tahay doctore. qadadka telefoonada ayaad moodaa in daawadayaasha ay isu soo buux dhaafinayaan si su-aalo dhowra ay doonayaan in looga jawaabo ay dhakhtarka usoo weydiiyaan. daawadaha kale ayaan soo qabanaya. hallo STN. asalaamu calaykum. calaykum asalaam. soo dhawow walaal, magacaagii meeshaad joogto? Fardowsa soo dhawow, su-aashaada u gudagal. dhakhtarka waxaan weydiin lahaa kiliyahay xanuunaan. haye kiliyaha saaid ay xanuunayaan markastoo cabaar markaan joogo adigu weyd kadib haddana way xanuunayaan markay oo caadadii ugu dhacdana kaba sii daranba. haye oo meeshan ubucda meeshan dhabarka kiliyaha saaid meeshaas dhanay way xanuunin. haye wakaas sidoo kale da-daada waa imse sano jir? kale saaid ay xanuunayaan. waa hagaag. Fardowsa imise sano ayaad jirtaa? 20. waa hagaag. su-aashaada dhakhtarka ayaan u gudbinayaa. Firdowsa aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa su-aashaan aadna weydiinayso. waa ku salaamayaa meesha aad degan tahay. ummadda Soomaaliyeed ee degan oo dhanna waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka xigta haddii aad tiraahdo keli baa leega hayaa, laftigeeda waxaa loo baahan yahay kelida in la ogaado. marmar waxaad dhacaysa Firdowsa adigoo ma aragtay dhabarka ku xanuunaya inaad kelida u aragto. haddii kelida ku xanuunaysa maxaa lagu gartaa? marta hore taasaan kuu sheegayaa. kelida markay xanuun ay leedahay waxaad ku garanaysaa kaadi badan, aadan celin karin, musqushii aad ku ordayso kow. marka xigta ay kaadi ku qabato ee ku gubayso markii aad bilaabayso aad dhehayso, markay kaa dhamaanaysana aad dhehayso oo aad iyo aad ku dhibayso. horta kelida markay waxay usoo gudbaysaa kaadi mareen, kaadi haysta imaanaysaa meeshaas bahlada, meeshaas infectionka ku jira uu imaanaya. marka meeshii oo dhan baa la qabsanaya. laakiin dad badanoo waxaa jira ay u maleeyaan keli in laga hayo, laakiin dhabarka laga hayo ma aragtay, murqaha laga hayo aan ka seexan karin, aadan ka socon karin, oo markasta aad leedahay allah intaa saacaas intaad tiraahdo alla keliya ay xanuunahay. marka waxaad yeelaysaa dhakhtar fiican u tag. kelida waa lagaa fiirinayaa, kaadidaa la fiirinayaa, waxa la yihahdo creatinine iyo urine acid iyo urea waxa la yihahda lagaa fiirinayaa. waa dhamaatay. markaas kadib daawadaada waa la heli karaa. labada keliyoodna waxaa lagaa saarayaa ma aragtay ultrasound scan, abdomen ultrasound scan wax la yiraahdo oo lagu arki karo keliyahaaga hadday wax qabaan iyo haddii kale. marka waxaa loo baahan yahay waxaas in lagu sii socdo waqti badan. lama baahna 20 jir haddaad tahayna waa gabar yaroo hadda oo bilaabaysa noloshadiiba hadda u bilaabanaysaa tahay. ha isku dayin, raadso dhakhtar fiican hadduu alla idmo, dawo allah ha ku soo dejiyo. aamiin. aad baad u mahadsan tahay doctore. waan filayaa talooyinka la siiyey in ay qaadan doonto islamarkaana ay markaasi ku faa-iidi doonto. labada daawado ee ugu dambeysay ee qadadka telefoonada ayaan soo qabanayaa mid kamid ah. hallo STN. Hello. asalaamu calaykum. calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. soo dhawow walaashay, magacaaga iyo meesha aad joogto?
waan dhawa walaal maca waxaan joogaa gaarisaan joogaa farxiyaa laydhaha. farxiya haye su-aashaada u guda gal. walaal maca waxaan weydiinaa daktarka hooyadii baa xanuunsan. haye marka gaas baa hay dawada gaaskana zaaid bay u cuni jirtay. haye marka afka wuu guduud buu noqday iyo dhaliska dhan boob buu noqday. haye marka afka marmarka qaar xitaa wuu dhiigi. haye marka ayagana waxay dhaheen waa gaaska oo calooshay dhaheen. haye marka daawadana zaaid bay markuu ku kaco kaleeto gaaska zaaid bay daawadu qaadataa. haye marka su-aashaasaan weydiinaa mid kalan weydiinaa su-aal kale. haye ani walaal markaan saa waan wax yar aan fadhiyo mhm qaarkan oo kale uu xanuuni murqaan oo inta garbaha hoostooda dhan ilaa geerka ilaa lugta ku eg. haye marka dhaktarka intaa jirka dhan korka xitaa markaan aan habeenka aan seexdo kale lugtan dib sidoo kaleeto farahan ku socono xanuun bas markaan wax yar socdo iyo dabci. haye labadaas su-aal baa abaahay weydiin lahaa. waa hagaag farxiya aad baad u mahadsan tahay. hay abaahay noo mahadsantahay. farxiya aada iyo aad baan kuugu mahad celinayaa su-aashaan aadna weydiinayso annagoo wada jir ah. marka xigta waxaan rabaa inaan salaamo ree wajeer ree mataqaana gaarisa markii afaraad inaan iraahdo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kasta ay joogaanba. marka xigta aan kuusoo noqdo farxiya waxaan ku leeyahay horta tii hooyada haddee subxaan allah iyadaa isdishay. maxaa dhacay dhe daawadan gaaska oo la daldalayo oo aan habeen iyo maalin aan idhaahdo war iska ilaaliya dawada badan ma fiicna. taasaa hadda afka ka hadlaysay. maxaa dhacay dhe hooyada difaaca jirkeedii ayaa hoos u dhacay oo afka ka qaribay. difaacba male jirkeeda difaac male. maxaa dhacay dhe gaaskiibaa eber noqday oo yaraaday. gaaskana difaaca jirka ayuu adkeynaya. maxaa dhacay cuntooyinka qaarkood markaa qaadato asaa kaa celinayo oo kaa burburinayo. marka daawadaas badan haddee dhibkeeda ay leedahay. marka hooyadaa waxaan dhihi lahay horta nin mataqaanaa takhasuskiisa fiican oo yaqaan waxaan oo calooshaasna yaqaan oo afkaasna yaqaan hadday hesho way bogsan kartaa wayna bogsan kartaa. aniga hadda ayaamahan ugu dambeysay dad mataqaanaa ka yimid mandheera iyo dad ka yimid gaarisa waan arkay oo afka ka buka kulligood ayagoo bogsaday baxeen laakiin difaaca jirka hoos u dhacaya. white blood cellska iyo p l t ga iyo waxaas oo dhan iyo waxa la yihahdo c r p oo serum reactive protein la yihahdo wixii aada u kacaya waxna qaarna hoos u dhacaya. marka jirkaaga ma iscelin karo waxba ma adkeysan karo. taasu waa tan hooyada. tan adiga markii lagu soo noqdo gabar yar baad u egtahay hadda codkaaga waa gabar yar. haddii murqaha saa lagaaga hayo adiga waxaa loo baahan yahay keliya kaadida inaad iska fiiriso. waxaa laga yaabaa infection keliyaha inay kaaga jiraan adoo waxba xanuun aadan dareemeyn laakiin waa hal qodob. qodobka labaad dhiigag waxaa u baahan tahay maaragta electrolyte wax la yihahdo in laga fiiriyo oo calciumka iyo vitamin d-ga iyo waxyaalahaas lamid ah lugahaas ku xanuunayo. waxaa laga yaabaa in waxyaala qaarkood vitamina qaarkooda uu kaa maqan yahay aada u baahan tahay in vitaminkaas lagu siiyo. sheekada meeshay ku dhamaanaysa hadduu alla idmo. waa hagaag doctor aad baad u mahadsan tahay. waxaan aada uga xumahay oo aan ka cudur daaranayaa waqtiga oo inaga dhamaaday awgey in daawadayaal kale aanan fursad sii siin karin maadaama aan horey uga dhawaajiyay inaan 2 daawado ugu dambeeya kusoo gabagabeyn doono. kii ugu dambeeyey ayuu waqtigu ka heliyey. toddobaadyada dambe ayaa nasiib wacan idin leeyahay. dhankaaga doctor maxaad kusoo gabagabeynaysaa? foosay marka ugu horeysa mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad ayaan kuu mahad celinayaa adiga qaas. marka xigta waxaan rabaa s t n t v star t v shaqaalaheedii iyo madaxdeedii meel kasta ay joogaanba inaan idhaahdo aada iyo aad baad u mahadsantihiin fursaddan wanaagsan oo aadna siinaysaan annagoo wada jir ah inaan ummadda soomaaliyeed tala dhakhtar ama wacyigelin aan ku siin karno. marka xigta waxaan rabaa ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba khaasatan reer kenya inaan idhaahdo caafimaadka ha lagu dadaalo. caafimaadka wax ka muhiimsan ma laha wax ka qaalisanna ma laha. haddii caafimaad aada haysanin oo wax kasta aada haysato dhibkaaga ma yara. ninka caafimaadka qabo ma garan karo inuu caafimaad qabo laakiin markuu cudurku dhaco uu garan karaa caafimaadka wuxuu yahay. marka caafimaadka ha lagu dadaalo wax kasta uu noqdaba hadday calool tahay iyo hadduu wadna yahay iyo hadday lafa tahay iyo hadday mataqaanaa sabab tahay iyo meel kasta lagaa haystaba caafimaadka ha lagu dadaalo. haddii aada cudur dareemeysana sida uu dhaqsaha badan dhakhtar u tag. dhakhtarada fiican haddii aada hesho dawo fiican aad hesho waad caafimaadeysaa waad shaqaysanaysaa wax walba caruur aad dhalaysaa wax kasta waad samayn karaysaa
hadduu alla idmo marka caafimaadka lagu dadaalan leeyahay ummadda Soomaaliyeed aad ayaan anaguna sidoo kale doctor kuugu mahad celinaynaa dabcan sidaan wada ognahay aragtida dhaqaatiirta aad bay markaasi in la arko dhakhtar la sheekaysto su'aalo la weydiiyo wax uu kaaga faa'iideeyo ama talo ku siiyo isagoon ku baarin dabcan way adag tahay dadku ma wada helaan balse waan kaaga mahad celinaynaa inaad dad badan u fududeysay guud ahaanteena isku duuban ayaanu barnaamijkii halka ku soo gabagabeynaynaa haddii aad joogto Nairobi Kenya iyo wariba nawaaxigeeda dhakhtarku haatan waxa uu ku sugan yahay xaruntiisa magaalada Nairobi waa International Health Medical Center oo ku taala wadada 12aad ee xaafadda Islii ka soo horjeedka Moonlight dabaqa koowaad oo markaasi maalin walba uu fariisto halka aad ka heli karto iyadoo lagu daweynayo kaarkaaga caafimaadka ama NHIF oo dhakhtarku uu ku shaqeeyo guud ahaanteena isku duuban waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo fiid wanaagsan marka ay dhammaan xubnahaagu helaan caafimaad dheelitiran ayaad guud ahaanba heshaa han fikir hawo adduun iyo har lagu qabowsado taasi oo hor iyo gadaalba ka yimaada maskax ay xoojiyeen addimo kaaba oo aan in lahayn hadal badan iyo heelasho kaba ma noqdaan aaran ka ramad dhalay iyo haleelo duubi laga soo buuxiyey hase ahaatee haddii aad daawade xumad madaxa ah addimo garaacmaya laabtaadu ololka gaas ku keeno dilooday iyo dhammaanba caafimaad xumi aad la jiibtay war farxadle ayaan iminka ku wadaa oo waxaa lagu furay International Health Center Dr. Cali Maco Aways ayaana xarun caafimaad kaaga furay xaafadda Islii ee magaalada Nairobi taasi waa bishaare heede adiguna bilkhayr oro xarunta caafimaadka International Health Center waxa ay ku taalaato olofka gaar ahaan wadada masaajidka aada waxaana uu si rasmi ah uga soo horjeedaa baqaaxidii hore ee Moonlight ninkii danaynaya oo raba inuu ii yimaado wuu ii iman karaa cudur kasta uu ka cabanayo sidaad ogtihiin aniga takhasuskayga waa general medicine 30 sano ku shaqeynayay dumarka caruurta lafaha wadnaha caloosha beerka kaliyaha wax allaale wixii adiga aad danaynayso waad ii iman kartaa haddii aad rabto waxbaad iga gaaraysaa wixii faahfaahinta intaasi dheerna ka dheeho shaashada